مرة طائرة مستجاب دعوة نقطي dadku waxay dhaaniyo ilaahay badan baan bariyo waxaan weydiisanay ma naray mar rabtaa in laga aqbalo sama jecesh in bariyadaadu cinda Allahi maqbuul ay noqoto albaabada Alle ay ku furan yihiin waxa kamida waxyaabaha ku furmaan qofku wuxuu cunayana ilaaliya farjigiisana ilaashada Nabi alayhi salatu wasalaam wuxuu tilmaamay saddex nin oo safar galay oo buur roob ku helay oo god galay godka intii ay ku jireen buuraleyda roobku markuu helo ay biyuhu shubmaan dhagxanta waaweyn way daataan qaar oo ciid yar ah soo qoda dabeetana dhagxanta way soo duldulcooda nimanku godkii ay roobka ka galeen ayuunba dhagax ku soo duldulcoodayo afku ka daboolay buur cidla god ku yaal oo dhagax kugu dumay oo wax ku safar ahayd oo cid ku tabaysa iyo cid ku helaysa toonaanay jirin la mobile baan jirin wala wax kala jirin suuninkan uga baxa xeelad kale markan dhamaad ayay saddexdiin yiraahdeen wariyaa nin walow bal wixii aad salaaday amal wanaagsan buu hayo ilaahay aad ku dhawaanaysay alla ku bari saddexdiin mid waliba amalkiisu ilaahay ku bari mid wuxuu ku bariyay rabbigii inuu waalidkii adeeci jiray oo xataa maalma ka mid ah xoolaha markuu soo xareeyo caruurtiisa iyo reerkiisa intaan wax siin ayuu waalidkii oo daa wax siin jiray maalintii dambe xoolihii fogaadeen goor dambe uu yimi uu soo lisay markuu la dilyimo buu yimi labadiisii waalidoo hurda deetana wuxuu yidhi caruur iyo cid toona waxa siinay waalidka u horeysay oo la dul fadhiistay inta badan dadka waaweyn hurdadoodu dawaska 20 daqiiqo qofku markuu daa gaadho oo yara seexdaa waa soo toosa waa yara seexdaa waa soo toosa ninkan ilaahay baa ku itixaamay waaba soo toosi waayey sidoo uu la dul fadhiyay caanihiiba waagu u bariyay aanu xalay lisay oo islaha mar uuna indhaa kala qaadan hana toosin hurdadooda iska hurdaan laakiin markay indhaa kala qaadan aad siisid buu lahaa dabeetana waaga ugu bariyay sidoo uu la dul fadhiyay dabeetana ilaahay buu bariyay wuxuu leeyahay yaa rab waad ogtay inaad dartaa sidaa u samaynayay waan waalidkay sidaa ugu samafalay ilaa uu dhagaxa naga fayguyo dhagaxii in buu hanqada laakiin in laga bixi kara maaha